maanta waxaa loo fadhiyaa kalfadhigii cuslaa ee carabta iyo sidoo kale dalalka muslimiinta isugu imaanayaan oo meesha waxaa fadhiya turki feri wax xasaasi waaye kulanka hadduu socdaa annaga dhan indhaha waxaa ku wada heenaa waxa ka soo bixi doono kulanka laakiin maanta waxaa rabaa taariikh xasaasi ah inaad dib idiin xasuusiyo aan rabaa taariikhdan oo markaa hadda idinka sheekayo allale ay dhihi doontiin caawa warkaasaa rabaa carabta inay soo saaraan hadda ka hor carabta 3 qodob oo yaab leh ayay soo saareen 3 qodob oo yaab leh 3daas qodob maanta ma soo saari doonaan 67 ma dhoweeya waaya marka kulankan waa xasaasi kulley hadda madax badan hadashay al-Sisi hadlay oo hadda soo dhageystay kii Mahmoud Abbas hadlay waxa kaloo hadlay Erdogan hadlay waxaa dhiman kii Pakistan iyo Iraq iyo dal far badan meesha fadhiyo oo kulley way qudbeen doonaan hadalay jeedin doonaan waana live hadda Al Jazeera hor fadhisid ha ka kicin qudbooyinkan ay soo jeedinayaan kadib qola la wada galaya waa la shiraaya qodobo inay soo saaraan way muhiimada qodobada waxa ku jira lagu leeyahayba in carab ma qaan isku raaci doonto in kale carab waa kadeed qaarkood waa madax adag yihiin qaarkood iga kala shakiyo macna laakiin qodobada waxa kamid noqon doono in ay sameystaan urur sida NATO oo kala ah oo Israa'iil hadee damacdo dal carab ah inay weerarto ama gantaalkeed uu ku dhaco carab oo dhan ku shamuumeyso sheeka noocaas ma soo saari doonaan arwa ka sageysin ma saayashan caaw way aydi xasuusiyo 1967 ku 1967 carab shirta carab way shirtay waa isku imaaday waxa la isugu imaaday Khartoum taariikhdan waa xasaasi carab markay shirtay 3 qodob ay soo saareen 3dan qodob iga dhigeyso meel ku qoro arwa ka caawa geesinimadii 67 ee qodobadaas ku soo saareen caawa carab hayelato salaana u saari doona qodobada waxa kamid ahay in aanan balla aqoonsanin wax la yiraahdo Israa'iil iyo dal la yiraahdo Israa'iil ama Israel state wax la yiraahdo in aanan la aqoonsanin gabigeedaba ay hadda ka hor carab isku raacday ku dhaqor 1967 ku dhaay 67 carab waxay isku raacday qodobka koowaad waay inaan la aqoonsanin dhulkan hadda Israa'iil ay degan tahay dhul carab ama Falastiin loo aqoonsado hadda ka hor isku raaceen kadibna beeci way ka baxeen waa tii dalal fara badan oo carab ah marka dambe ay aqoonsadeen Israa'iil inay tahay state jiro ee aqoonsan hadda ka hor marka qodobkaas xagga iidig carcaawa kaasa ha soo saaraan waa arki doonaa 1967 Khartoum qodobka labaad wuxuu ahaa in aana wax heshiis la yiraahdo heshiis nabadeed peace inaan balala gelin heshiis nabadeed oo meesha lagu arko lala dagaalo hadda ka hor carab labadaas qodobka saddexaad oo adeeg wada qodobka koowaad oo ahay inaan la aqoonsanin wax la yiraahdo Israa'iil qodobka labaad oo ahay inaan nabad lala fariisanin wax nabad la dhaho aysan dhexmarin carab iyo Israa'iil oo dagaal uu ka dhaxay qodobka saddexaad wuxuu ahaa wax negotiations la dhahayo wada xaajood Israa'iil ay kaalay Falastiin dhulkaas u ogolaaw West Bank u ogolaaw wax negotiation idin soo koob marka saddexda qodob had koor ay soo saareen aniga caaw meel u fadhiya in Israa'iil aysan inay dal tahay ama ay jirtaba la inkiro carab ay inkirto had koor way soo saareen qodobkaas caaw ma ku jiri doonta ina wada xaajood lala gelin inaanan wax nabad la yiraahdo ay ka dhaxdeen hadaa ku dhaw ka war Erdogan madaxweyne Erdogan mayasa iyo kan Syria iyo midka maxaa la jiray Qatar saddexdaas waxay soo jeediyeen saddexdan qodob hadda idin sheegay ay soo jeediyeen in caawa lagu heshiyo dadaa diidi doono Sacuudiga inay diidi doonto ani ila tahay Masar inay diidi doonto ila tahay Lubnaan inay diidi doonto ay ila tahay carabta dhaxdooda marka khilaaf kulay arki doonaa waayay taas oo agaysa Soomaa intaas indhaha ku hay saddexdaas qodob 1967 ee soo saareen ma soo saari doonaa way caawa taas horta wax meel u fadhino riix xagga idin NATO carab oo NATO samaysanayso allo caawa ma ku soo daraan qodobkaas oo xasaas sababta fiiriya meeshaan NATO haddii caawa qodobka NATO carab inay ku midowdo barnaamij NATO oo kala ah oo ah Israa'iil hadda dal carab lugtaada gelisid anaga dhana kugu soo shimuumeen macnaheeda ilaa NATO qodobku yala wuxuu yahay haddii dal NATO la taabto NATO dhana dagaalka geliso carabne saasa la leeyahay caawa heshiiska ay ku jirto yani ay ku soo dari doonaan laakiin sheekada meesha iska qaban la adaa idin sheega Israa'iil goor horeba Lubnaan ay ku jirtaa taangiyadeeda diyaaradaheeda balaayadeeda ciidamadeeda boqolaal ah gudaha ugu jiro Syria soo dal carab oo xor ma ah hade ama dagaal ka socdo ogaay laakiin dhul 30
iyo 9 adi 40 kilomitir dhul gaarayo hadda Israa'iil ay xog ku haysataa dhab Lubnaan dhinacay ugu jirtaa marka haddii caawa qodobka NATO lagu dhawaaqo micnihiisu waxa waa dagaal furanba waa dagaalku waa maadaama already ba Israa'iil ay jugta ku hayso dalal Carab ah oo Syria ay kamid tahay oo Lubnaan ay kamid tahay oo Ciraaq habeen walba diyaaradaheeda dul maraan saas ayaba dagaalka uu bilow ku yahay markaas ay sheekada macaanaanaysa qodobkaas ma ku jiri doonaa war adduunkiyo dhan ciyaar ma ah adduunkiyo dhan maanta wuxuu indhaha ku hayaa qodobada aw Carab oo looga bartay inay u shiraan Arab waxa la waxay ku heshiisay inay sinashiin Arab agrees to disagree wilgid la dhigi maanta ma tiya noqon doontaa mise dalalkan Carabta ahayn oo laandheerayaasha sida Pakistan iyo Turki ayaa wax ka bedeli doona oo Carabtan narbaash ku dhufan doona caawa qodobo xasaasi ah oo adag soo saar dhihi doono bal meesha ku dambeeyso arkeena ha seexanina inta Facebook igala socoto post by post inshallah